nabad waarta oo baahsan ayna gaarto nabadu magaalada Gaalkacyo kaliya ay ku wareegin ay gaarto miyiga iyo dhulalka baahsan oo gobolka Mudug uu ka kooban yahay dhinaca bari iyo dhinaca galbeed labadaba sidaa darteed maanta halkan waxaan ku balansaneen in la isku yimaado ayna isku yimaadaan waxgaradka beelaha walaalaha ah ee deega gobolka Mudug waxa gogoshan saawlo socotaan ku casunnaa oo ay ahayd inay ka soo qayb galaan beelaha walaalaha oo deega gobolka Mudug dhinaca galmudug nasiib xumo aad baan uga xunnahay ilaa hadda inaysan shirki ka soo qayb galin shirkaan oo muddo 10 bari loo fadhiyay taas marka shalay waanaga ka tashanay oo niri maxaa la sameeyaa haday saadicin waxaan dadkii qaban qaabinayay barnaamijkan odayaashii dhaqanka gudiyadii farsamada la isla qaatay in nabadda aan ka tashano oo dhinacaan Puntland dadka degan beelaha gobolkan dega ay ka tashadaan inay nabad qaataan sidaa darteed waxa weeye shaqo dhan la adkeynayay in nabadgeliyo buuxda lagu baaqo dhinacaan hadda dadka degan ay ku baaqaan sidoo kale walaalahood inay ugu baaqaan nabadgeliyo sidoo kale inay qaataan ama reer Balbisla ama dhinacaan dadka jooga oo bariga iyo galbeedkaba ay muujiyeen inay ka go'an tahay in nabad la helo nabad ay ka shaqeeyaan ay qaataan intaas waxay tahay wax weyn ah waayadan dambe dadku waxay ka wada shaqeynayeen oo ay u horeeyaan odayaasha iyo ciidamaduba in nabad la helo waxaana soo jiitamaysa dhowr sano xilliyada hore waxa u maleynayaa in lagu kala aragti duwanaa laakiin waayadan dambe iyo maanta halkan la fadhiyaba in isku aragti laga yahay in nabad la qaato raxiim dhammaan akhyaarta meesha fadhida waan salaamayaa salaan kadib waxaan akhrinayaa bayaankii ka soo baxay shirki Balbusle ee gogosha nabadda loo dhigay gobolka Mudug bismillaahir rahmaanir rahiim bayaan iyo baaq nabadeed gogoshii la dhigay magaalada Balbusle ee deegaanka Jariiban ee degmada Jariiban 9kii bishii 2020 ilaa 21 bisha 2020 gogosha Balbusle waxay ahayd gogol nabadeed oo ka madax bannaan siyaasad waxa loogu talagalay in ay ku wada xaajoodaan beelaha walaalaha ah ee colaadda soo daashatay naf iyo maalba nabaddu muddooyinkii u dambeeyay waxay ahayd mid soo hagaagaysay marba marka ka sii dambaysana nabadii sano u dambaysay wixii dhaxmara dhinacyada waxa lagu xalinayay wada hadal waxaana lagu gaaray guulo xalgal ah si kasta inkastoo aan la soo afjarin ku talagalkuna ahaa in lagu soo afjaro gogosha Balbusle oo ay ku balansanaayeen beelaha walaalaha ee dega gobolka Mudug si kastaba ha ahaatee waxaan ka xunnahay in ergadii iyo odayaashii dhinaca galmudug aysan ka soo qayb galin gogosha nabadda haddaba waxaa shirkii u furmay ergadii beelaha gobolka Mudug dhinaca Puntland ee isaga kala yimid degmooyinka Gaalkacyo Galdagob Tawfiiq Xarfo Saaxo Bursaalax Burtille iyo degmada Jariiban oo martigelisay shirweynaha nabadeynta gogosha dhigayna magaalada Balbusle waxaana ka soo baxay gogoshan qodobada hoos ku xusan waxaan ugu baaqaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer Mudug nabad iyo wada noolaansho iyo wixii khilaaf ah in lagu dhameeyo wada hadal number 2 waxaan ku baaqaynaa in dadka reer Mudug dhinaca Puntland dega inay bixiyaan ammaan buuxa walaalahoodna ay nabad geliyaan naftooda maalkooda iyo deegaankoodaba number 3 waxaan ugu baaqaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo gaar ahaan gobolka Mudug in ay ku dhaqmaan shariicada Islaamka laguna kala baxo
taas oo ah tan keliya oo keeni karta wada noolaansho kalsooni iyo xasilooni. Nambar 4 waxaan ugu baaqaynaa cid kasta oo mas'uul ah in ay gacan buuxda ka geystaan nabadaynta shacabka gobolka Mudug ee dariska iyo walaalaha ah. Nambar 5 odayaasha iyo cuqaasha waxay ugu baaqayaan dadka reer Puntland guud ahaan iyo gaar ahaan dadka reer Mudug dal iyo dibadba in ay ka qayb qaataan mashaariicda horumarinta ee ka socota Puntland gaar ahaan gobolka Mudug. Nambar 6 waxaan ugu baaqaynaa walaalaha iyo reer Galmudug inay xoojiyaan nabadda aan iska kaashano taabagelinta dhamaystirka hirgelinta nabad waarta oo baahsan gobolka Mudug. Nambar 7 bayaankan waxaa saxeexay odayaasha ergooyinka ka soo qayb galay shirka Balibusle. وبالله توفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. sida loo yeelay nabadda xalqa waanu ayinay guri walba in gaarsiiyaan ku baaqayna aynu nabadda hadaynu qaadano oo guri walba gaarsiino oo dhexdeena isku baahino ummad waan ku dayalaysaa sida aan u soo qornay baan isu waafaqsanahay waa baaqa waan kan xoojinayna weeye baaq nabadeed iyo waxaan go'aanada qaadanay waa inta waraaqda ku qoran insha Allah shariicada islaamkuna baaq nagama ahan waa naga dhab waan isla qaadanay hor iyo dib. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. anigu boqolkiiba boqol waxaan soo dhaweeyay in nabadaas la xoojiyo inteenaan meesha joogtaan aynu isla qaadano ayna dhabina ka tahay. annaguna waxaanu idinku baaqnay nabad inaanu diyaar u nahay qorigeena iska dhignay xabadda ka saarnay waxaanu maanta doonaynaana ay tahay walaalnimo iyo wada noolaansho iyo wixii horeeto aynu iska cafino. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. annagu waxaan soo jeedinaynaa arrintaasaa naga dhab ah walaalaha iyo waxaan ugu baaqaynaa ayadoon gogoli jirin inaynu isu nimaadnaan annagaa bilowno xamar ku tagnay haddana tan waa dhignay haddaa mid dhigaysaanna waa imaanaynaa laakiin waxaan idinka codsanaynaa annagu waxaan go'aansannay xoolihiinna dhiiggeenna dhulkeenna inaan intaa nabadgelino. waan soo dhaweynaynaa baaqyada la soo saaray waanu ka soo saarnay haddii laga shiray oo laysu yimid oo haatan halkan laga baahiyey waa mid aanu isku raacsannahay waa mid aanu soo jeedinnay waa mid loo arkay dadka dantiisa iyo dalka dantiisa intaba waa mid colaadda dalka soo daashatay dadku ay u arkeen in lagaga hortegi karo. annagu dhinaca iyaga waanu go'aansannay deegaanka rabbi nagu beeray inaanaan dhaafin ma duulayno cidna ma aadayno deegaanka aanu joogno innala ku nabadgashaanu codsanaynaa. aad iyo aad baad u mahadsantihiin bayaanka iyo warkaygu ku dhammaan waa ka baxay. salaamu calaykum waxaan leenahay shirkan aan isugu nimid waa guulaysta cid baa ina ka maqan walaalaheen hadday ina ka maqan yihiin xeer baanu ugu lahayn shirkaan Balibusle dhignay inay yimaadaan 97 nin annagoo ah iyadoo aan la wada hadlin oo la isu tagin bayna martiqaadeen oo xamar aan ugu tagnay abaal waxaan ugu lahayn maanta aan Balibusle gogosha dhignay markay inay noo yimaadaan.